مقلي شري وايدين لك افتميا مردوي مدن مسبح بانو كنمي wadaadka jananimadii xoogaa ka yara leexleexday oo warjananka dheh iyo xoogaa waa la isku ceshay waa la qoslay warbaaxasha jananimada ah muusan saaka ka soo saxiixay oo cid hor istaagaysa ma laha soo garanaysa oo waliba wuxuu yiri ciidan salaam ku qaada oo ku siiya baan maxay ahayd ay ku diyaarinaya tamaam Hargeysa anigu Kismaayaan ku koray meesha Jubbaland la yiraahdo baan ku koray Kenya aan ku dhasho laakiin Kismaayaan ku koray waagii hore oo kacaanku uu yimi oo shaqooyinka ay furfurmeen wadooyinkii iyo dekadihii iyo airport ay ashii geegida dayuuradaha baa la dhisayay wixii wadanka wax yaqiinay waqooyi bay badan ka imanayeen hadday tarjumaanada yihiin iyo hadday maxay ahayd ay agaasimayaasha yihiin iyo directorada iyo kii muruqmaalba askarta hadana la kala bedelay waxaana loo keenay askartii Soomaaliyeed ahayd xaqii bay soo degeen oo maxay ahayd ay guriyay ka dhisteen marka intii hore reer koonfurku reer Kismaayoodku waa dad gaara sideeda waxa la yiraahdaa Kismaayo iyo Kista iyo Karbonada iyo Kaska dad gaaray ahaayeen oo is yaqaan oo reer koonfura markii hawsha ay dhacday oo Soomaaliyeedku ay noo yimaadeen baa la isdhaxgalay dadkii jiiraan baa la noqday dadba waxay lahaayeen dhaqamo gaara dadkaasi dad iska yara damsan oo yara maasha Allah iska ah ninka anaga noo yimaada xagga noogu yimaada oo waxaan oran jiray galti goondheer baan oran jiray inta aanan la dajin geed quraca baa lagu xiri jiray quraansadana lagu kicin jiray si xoogaa karkarka uu uga jabo marka xigtaana waxa lagu dari jiray gabar carmala ama garooba baa lagu dari jiray sidee asaga iyo inan yar iyo gabar yar isma qaadan karaan naag dhaqan taqaan oo maxay ahayd celcelin karta ayaanu ku soo dhaweyn jiray taa waxa iga daray meesha u soo jeeda hadda inta maaha waa ma aqaan in deelqaaf uu iga noqon doono laakiin arar baan ka gelaya amaan baan u soo socdaa inta yar hay qabanina waxa yeelay ninka hadal badan dhaxalka aabbaha uu ku doosiyay anoo u socda in aan maxay ahayd wanaagii iyo tusaale ka bixiyo ayaan rabaa misaal wabil misali yatadih al maqal shalay meeshan ka filayay iyo maanta meeshay joogtaan rabaa halkaas aan rabaa inaan isku xiro markii jiiraan la wada noqday oo jaarkii iyo ay isbarteen baa xogaade raggu waa isku dhacaya waa isqoonsanaya dagaalna gondahaagu ka dhashaa markay laba nin mid reer koonfurka reer Kismaayoodkii iyo mid reer Somaliland ama maxay laascaanaha ka yimaado ama Burco iyo Hargeysa iyo Berbere iyo meel ka dambaysa iyo Buuhood iyo Boorama ka yimaado marka xoogaa la isqoonsado Somaliland waa taqiineen waa diintaada abu ka bilaabi jiray sidii loo joogay markay qumaati u dageen oo guriyo dhisteen bay waxay keeneen caruurtoodii reerihii bay soo rareen meesha ay halka u soo socdo caruurihii yar ay ku badda wada cayaari jiray iyo maxay ahaydayay giraangirta iyo ma aqaan giraangirina u taqaanaane ceyrin jiray baa markii dambe isku dhacay yaryarkii baa bilaabay hadda diinta aabbaha iyo bay bilaabeen marka war Soomaaliland yar baan jooga Soomaaliland yar marka waa la kaftamayo qoladii baan soo gashay waxaan u jeedaa ma waxaan ka filanayay mise waxaan ku arkay Hargeysadii hore Hargeysadan ma aha ama Hargeysadan suuraysanayay waxaan u imi markii ugu horeysay aan Hargeysa imi 10 qiraa'ad oo Quraanka Kariimka ayaa lagu tartamaya 10 qiraa'ad waxa ku tartamaya 23 mise 27 tartame oo waliba wiilal iyo gabdhaba leh adduunka kama dhacdo adduunka Sacuudigana kama dhacdo Suudaanna kama dhacdo Qatar kama dhacdo Imaaraat kama dhacdo Indonesia oo muslimka ugu badan kama dhacdo meelay ka dhacdaa male meesha kaliya 10 qiraa'ad lagu tartamo sida Sheekh Cabdirashiid
aan ka soo hubsaday waa Kuwait iikaadi oo weliba gabdha male Kuwaituna xataa ragga ku tartamaya qudhoodu waa fara ku tiris waa maxay ahayday dunidoo dhan baa codsi loo dirayaa maxay dhowr iyo konton codsi ama 60 meeyo ayaa dunida loo dirayaa dawladaha waxa ka imanaya 10 12 ama markay ugu badnay 14 baa timi Hargeysa waxaan ugu imi dhowr iyo 20 oo waliba rag iyo dumar waxa ii xigtay masaajidii baan ku wareegay ama wasiirka baan fadhi la yeelanay wuxuu inoo tiriyay masaajida ku taala Hargeysa ama gobolada Somaliland ciidaas ay ka badatay annana de waa shaahidnay dariiqaad martaba masjid quruxsan oo masaajidii anagu ama koonfur ku naqiin ama Kenya aan ka imiba ku tiilay masaajid ka quruxsan oo si quruxsan loo dhisay oo masaajidii carabta oo kala ah taa waxa ka daran nashaadka cilmiga yaal annagu markaan meelaha joogno ama culimadii horeba waxa la amaani jiray galbeed iyo Ethiopia baa la amaani jiray waxaan la yaabay markaan ogaaday Sheekh Abdul Qadir meesha raasa la yiraahdo xirta ku haya baa wuxuu soo dirsaday xir si ay Hargeysa cilmi ooga soo bartaan kadibna ay raasa ku laabtaan oo dadkii sida ay aqoon u baraan taasina waa marag madoonto Dr. Khadir baa hadda ii muuqda oo casho dhaweey 3 kitaab uu qoray isagu qoray inoo hadiyeeyay maanta annaga sheekheeni noogu cilmiga badnaa oo aan kala imi maxay ahaydayay Kenya oo Sheekh Maxamed Xaaji Cusmaan Calasow oo mufti diyaar ah saaka ugu dambeysay baa u maleynaya kitaab uu ka baranayay Dr. Khadir iyo Cabdillaahi Cali Geelle iyo quraada ciida badan iyo hablahan wanaagsan iyo masaajidan quruxsan iyo de maanta Hargeysa tii aan filayay ma igu noqon waanu jeclaanay aniga iyo Sheekh Cabdirashiid iyo ragii meesha ugu aan ku cusbayn waxa iga kamida ragga aanu Hargeysa maanta keenay oo waliba hadda ay ugu horeyso Dr. Ali Maxamed Saalix oo maxay ahayd doctor Kenya waana gudoomiyaha mu'tamarka Ansari Sunnah waa ninka weeye gacanta taa ragga ku arkaan ama bay istaag ayro istaag jazakallahu khair oo siday raggu yiraahdaan xoogaa wuxuu jecel yahay nin dhalin yar in lagu tilmaamo laakiin nin dab yar sidaya ma tamam ilaahay subhanahu wa ta'ala haydin barakeeyo wadna wanaajisayna Allah idin wanaajiyo guulaysta Allah idin barakeeyo